Isbitaalka guud ee magaalada Wardheer ayaa waxaa laga bilaabay ololaha qaliinka faruuryaha ee bilaasha isla markaana looga talagalay inay ka faa'iideystaan shacabka gobolka Doolo iyo nawaaxigeeda sida uu warkaasi eegay wariyeena Bashiir Cabbaas. magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo waxaa si rasmi ah uga bilaabmay isbitaalka guud ee magaaladaasi ololaha qaliinka faruuryaha iyo dhabxanaga ee looga faa'iideynayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Doolo iyo nawaaxigiisa waxaana adeegan oo ah mid bilaash ah iska kaashaday xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida isbitaalka guud ee magaalada Wardheer iyo hay'ad fadhigeedu yahay dalka Jarmalka hadaba ololahan qaliinka faruuryaha iyo dhabxanaga oo looga faa'iideynayo bulshada ku dhaqan gobolka Doolo ayaa ah adeeg kaasoo ay iska kaashadeen xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida oo kaashanaya isbitaalka magaalada Wardheer iyo hay'adda fadhigeedu yahay dalkan Jarmalka ayaa noqon doona marka la soo gabagabeeyo mid waxtar weyn u leh guud ahaanba bulshada looga faa'iideynayo adeegani Dr. Samatan Maxamed Xasan iyo sidoo kale medical director-ka isbitaalka guud ee magaalada Wardheer mudane Cabdullaahi Badal Cali ayaa warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV ugu warbixiyay ololahani waxaan wada doonaa insha Allah toddobaad maanta waa maalinkeeni saddexaad qalinka wadno qorshe wuxuu yahay insha Allah ilaa 50 wixii maadaama u sameeyay hadii la yiraahdo caruurtan maartay faruuryaha saddex bilood wixii ka weyn waanu sameeynaa insha Allah wixii caruurtan dhabxanugu banayahayna waxaanu sameeynaa 9 bilood laga bilaabo ilaa ay maartay ka weyn yahay dhan inta waanu sameeynaa insha Allah bulshada waxaan ugu baaqayaa walaalo inay ka faa'iideystaan meel kasta ay joogaan ay yimaadaan ay ka qayb qaataan wax waa bilaash qalin bilaash weyn insha Allah si fiican ugu sameyn doonaa hadii la yiraahdo aad ugu faa'iido doonaan assalaamu calaykum waxaan TV-ga SRTV la wadaagaynaa inaan ka bilownay xarunta hospitaalka qaliinkii faruuryaha iyo dhamxalaga oo maartay runtii maartay bulshada ku dhaqan gobolkan guud ahaan iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida maartay wax weyn ka bedeli doona runtii waxaan bilownay taariikhdii markay ahayd 7 bishan February wuxuuna socon doonaa muddo dhan ilaa iyo 7 cisho ilaa 15 bisha uu socon doonaa runtii waxaan ugu baaqaynaa bulshada waa bilow maanta maalinkii saddexaad ayuu ku jira ololahani marka waxaan ugu baaqaynaa bulshada kulli waxaan qabanay hadda kiisaska aan qabanay duwaan gelinay screenka aan marnay waxay dhan yihiin kiisas ilaa 54 ah kuwaas oo ilaa daraad laga sameeyay 3 cisho la soo dhaafay laga sameeyay 14 kiis qalitaan laguna guuleystay natiijadii laga lahaana ay maartay ka soo baxday waalidiintii iyo maartay bukaanada laftooduba maartay aad maartay uga mahad celiyeen ogaadiyeenna runtii maartay dad badan oo welina kulli bulshadu iska soo daba dhacayaan oo xubnihii hore duwaan gelinay toddobaadadii la soo dhaafay duwaan gelinay weli kuwa horleb ayaa si horle u imaanaya oo maartay bukaano horle oo aan weli screenka ka marin ayaa maantadan imaanaya berrina inay yimaadaan saadamana yimaadaan maadaama qalitaanku uu maartay hadda 5-6 cisho soo socota uu sii socon doono ayaan filaynaa marka runtii qalitaankan wuxuu noqday qalitaan maartay aad iyo aad muhiim u ah bulshaduna ay bogaadiyeen aad iyo aadna looga baahnaa wuxuu ahaa waxa weeyaan waa adeeg loo doonan jiray meel fog waliba maartay kililkana ka baxsan ilaa iyo adsaba iyo meelaha la mid ah loo doonan jiray runtii maartay qalitaankan wuxuu wax weyn ka tari doonaa baahiyihii ay qabeen bulshada la nool xanuunkan maartay clift lib ampaleedka la dhaho oo faruuryaha iyo dhamxalaga ah runtii waan bogaadinaynaa hay'adan maartay ololaha nala wada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa sheegay in Itoobiya ay ku jirto waqti doorasho oo xasaasi ah sida warkaasi eegay wariyeena Cabdullaahi Cabdi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya Marwo Milaad Warqo Haylo